isaguna xubin firfircoon dhalinyarada ku jirta dhammaan waxaan la wadaagi doonaa waqti dhow ama aad xafiiska santarka soyba ama xafiiskayga CYE iyo kakoodaha aad ugu iman doontaa presentationada la jeediyey caawoodan iyagoo qoraala ama email bay la wadaagtaa cabdiraxmaan ila soo dhaweeye isaguna كل وي قرني أنت قرني أنا جسبريا والله وحنا هاي نبتوريا أو وحويا بلاكو قبض بتركا إيو سيلع دقيقة هذا إيو عيارهاس هو هاي واحد إذا كسو بقولون إذا كسو بقولي مجانا يهر جيسا تيانو ونين واحد سكا هاي markay hore waxaan ahaa reer burcaanha imikana xaajiyeedayda reer burca marka waxaan noqday 100% miyaan reer burca ahayn horta xarunta dhiirigelinta dhalinyarada aad baan runtii ugu farxay hawsha ay qabanayso waa hawlo masiiri ah oo waxa weeyaan madalo lagu gorfaynayo laguna carinayo hal abuurka iyo hibada dhalinyarteena nimanka reer burcoon waliba de waxa weeyaan iyo hablaha reer burco oo aanu waxa weeyaan anagu de u naqaanaynay dad naga firfircoon oo naga hal abuur badan oo dhiiran ay yihiin oo marka gobolada Soomaaliland laga hadlayo burco waxa la yiraahdaa waa dad hadal caddaantuna wax weeyaan waa dhiiranaanta ku dhaca shayga la yiraahdo marka run ahaantii madasha iyo saddexda mowduuc ee laga hadlay midba in yar uu man ka taabani Firdaus oo ka hadashay arrimaha haweenka anigu horta maadaama nin dhaqanahay dhaqankeena waan difaacaya oo wax leeyahay dhaqanku muu gabin hablaha dadka reer magaalka dhaqanka aqoonin ayaa gabay hablaha qodob baan ku darayaayo Allah u naxariistay gaariye tusaale uu noo soo qaatay maruu af Soomaaliga jaamacadda noogu dhigay ayaa waxa jirta maahmaah ama xikmad la yiraahdo matan buu jafaala badal u soo fuulay jafaalo biyuu ahaa tuubaqasho soo fuulayna yahay gabadh fariida dhabeela maxaan ku raadayay hablahaba intaas dheer ayaa aabaheed bay saaxiib ahayn waxay ku tiri aabbo kulliba nin baad siinaysaa anigu ma doortaa deetana inantii fariidadeeda deetana wuxuu yiri barwaayay aabba adigu dooro inantii inay guurmeer tahay oo guur diyaar tahay ayaa gayaankii gayga laga wada maqlay waxa weeyaan hal doorkii ragga kii quruxda badnaa kii maalka lahaa kii magaca lahaa kii mansabka lahaa kii nin waliba intuu faras soo qaatay qurux badan uu soo heensaystay halka duleedka reerka soo mara markaas nahiblaayay hebel baa maraya ka uu eega way eegtaa mar allaali markay soo jilcday daab kan naf ma lahe odaygi baa yaabay waxa weeyaan nin lamida oo ku jira geygaga sida de markaa wax weeyaan aragtida bini aadamka la qiimeynayo kuma ma jirin haddana waxa nin laandheere abu laandheere baa halkan soo maray oo in hebel oo waxa weeyaan de la garanayo caana ayaa soo maray nahiblaayay nabal eeg waa ninkii hebel laandheere baa iga daabay taaba ninkan naf ma lahe waxay wado ragii wada socday ayaa nin jafaal la yiraahdo oo gaaban oo madow oo fool xun ayaa intuu baqal soo fuulay baqash wax iska dhalay dameer iyo faras ragna waxay geeyeen shaaximan bay soo koriyeen deetolana maxay sameeyeen ninkii intuu baqashii soo fuulay ayuu goor xooluhu casarkii mayracanayaan duleedkii reerka ayuu waliba isagoo gaaban iyo baqal fool xun buu gadhif halkan uu soo maray aabaheed baa marooro dilaac inantii diiday waxa laali wixii ragaygu ku jiray ayuu yiri tolay matan buu jafaala baqal soo fuulay markaasay tiri aabo ninkaygii hayga caay marka waxaan ka wadaa qisadaasi علشان haweenku kaalinta ay ku lahaayeen dhaqanka in ikhtiyaarka wax weyn ay de kala soo jeedinta ay bixisay inay wax weyn arrimaha masiirkeeda gacanta ku qaadatay waxaan filayaa markay jaamacadaha dhiganayeen in aan ama habluhu dhiganayaan in aan kuuliyada loo doorin ee ay doortaan marka wax weeyaan waa arimaha masiiriga ah ee ku taabanaya inamada halka soo fadhiya oo anigu afkooda ku hadlayo waxaan farduusay marakaaganahay in aanan diidanayn in habluhu wixii diinteena islaamka iyo dhaqankeena iyo waxa dadnimadeena u ogashahay inaanu ka duudsino warma nin baa diidan oo ma yasabaha isfahan yar oo ba meeshii loo baahan yahay in isla fahano
mawaadiicda war talow xilkeeba ku habboon keebay qabanayaan keebaase ay ka caagan yihiin marka area dangerous inaanay gelin oonay odhan dee wax weeyaan hoggaanka sare iyo madaxweynaha noqonayna inaanay noqonano dee arrijaalu qawaamuuna cala nisaa dumarkuna talada qayb bay ka lahaayeen aan ku yaro laro qiso dhex martay nabigeena maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam iyo ummahaatu muuminiin zaynab baan filayaa inay ahayd waxaa jirtay xilli saxaabadu nebigu intuu amar siiyey ee amar diida sameeyeen nebiguna uu uga baqay inay cadho ilaahay ku dhacdo saxaabada oo dhan qofkii la talisay waa isagu wax weeyaan nebinimadiisii amarkiisii wixii oo dhan xujo ka weyn baa timid inay asxaabtii oo dhan ku halaagsanto meeshii Zaynab baa la talisay waxay ku tiri adigu ficilka u bilowdo timaha iska xir kadibna aad arki doona iyagoo kugu dayanay taladii maalinta ay ku badbaaday asxaabtu Zaynab baa soo jeedisay marka wax weeyaan haweenku waa hooyooyinkayo waa walaalahayo waa gayaankayo ma doonayno inay ugu sareeyaan moojaane inay liitaan marka taa ku bishaarayso idinkuna midun idinkuna noo ballan qaada qolyaha maaragtay meelaha galbeedka ee gaalada dhigaga imaada inaydaan naga raacin oo wax weeyaan markay yiraahdaan gender balance markay yiraahdaan xaggooda ha u jabina xagga iyaga u soo ciira hadii ilaahay dhawo waayo wax weeyaan deynad wax weeyaan anagana nacabka noo jabinina oo deeyaan laga dhigan waraabayaal hablahoodii de wax weeyaan wax walba ka horboobayo uno ka qaadayo uno taasi waa taa mawduucii muxuu hayay shaqa abuurka hal abuurka ganacsi ee uu kaga dhawaajiyay magaalada Hargeysa ka yimid waxa jira ganacsiyo habeen noolayaal la yiraahdo waxa ku yaala xarunta degmada 26 Juun albaabkeeda weyn albaabkaas oo kale ku beegan maqaaxi 6 fiidnimo ilaa 6 aroornimo shidan cunto nooc walba aad ka helaysid haddaad 6 barka ay gaadhana waxa soo galaya gaariga ka soo galaya dadka ka soo galaya meesh maqaaxidiba ma habeenkiina waa cimranta waxaan huba lacagta nimankaas qabtaan in aanay qabanin meheradaha kale ee shidan ee qarashka iyo lacagta buuran galiyay marka ganacsiyada loo baahan yahay wax weeyaan qofkiina noloshiisa dhisaya muxuu ahaayay fursadaha isbixin karaya ee aan wax weyn ku kacayn wax weeyaan hal abuur inaynu de wax weeyaan laba dhagax dhexdood aynu kala soo dhex baxno tan kale internetka iyo fursadda ay sheegaysay aniga ku lahaa habeen hore ayaan ku lahaa nawal munay de programkeena iyaali hadii aan ay gobodii ku hadhay de wala liga daba geey marka aniga laftigayga doonayay inaan ka daba tago dad meesh muxuu ahaayay kii scholarship kii dad kole sidoo qoran inuu akhrisanay ee Jarmalka ninaan saaxiib nahay ayaa imika soo qalin jabinaya oo tagay jooga dhowr jeerna muxuu ahaayay dalka ku soo laabtay marka run ahaantii waxa weeyaan xogta wadaagista ay ku wacan tahay sharing care beeradan qolyahan afkan ingiriisiga iskali inagu caana weyn wadaagi jirnay marka waxa weeyaan run ahaantii xarunta hadaan soo noqdo xaruntu waxa weeyaan aad bay u amaanan tahay oo waxa weeyaan sayfo oo waxa weeyaan aanu axyaas ku soo ahayno ilaa iyo 2006 aanu de waxa weeyaan isla soo wada joogno way ka horeysay 2006 laakiin 2006 baan xarunta soo booqdan burcaymid run ahaantii laf dhabarna oo ah magaalada in xaruntana la furo oo wax weeyaan goob aqooneed oo academic level oo wax weeyaan lagu gorfeynayo masiirkeeni sidii ay wax weeyaan nolosheena maalin maanta dhaanta waxaynu u cararaynaa waxa weeyaan maalin maanta dhaanta inaynu mustaqbalkeena gamcaha ku qaadano muxuu ahaayay inaynu isla socono oo waxa weeyaan muxuu ahaayay aynu hawshana aynaan kala boodin oo wax weeyaan iyagu kala hablo markay yiraahdaan alkaasaan waan soo sharaxayna no waa ragga meel kale leh ee dumar jikadiina ma saga eekaataan marka waxa weeyaan anigu waxaan aaminsanahay Cabdiraxmaan ahaan dumarku meelaha qaar way nagaga habooyin caafimaadka waxbarashada iyo arrimaha bulshada way nagaga habooyin in wasiirka caafimaadka iyo maaliyadda
waayo iskuulka aliflan soo ahaan jiray may wallahi lagu daraya ana abo taa ka marakacay waayo aliflan soo ahaan jiray iskuulkii hoose dhexe maadaama aliflan soo ahaa markaan inaan idhaahdo lacagta qabo bar baa ku tagi jiray lacagta hablahana waxaanu ku tashan jirnay inaan idhaahno waaryaaneen hee hablaha inuu maaliyadda u dhiibanaynayo hadhow toolaha hawsha haddii isbixin weydo waynu kaga baxaynaa iyagunbaa dee bixinaya deetana lacagtii loogu talagalay waxa weeyaan lacagtii loogu talagalay ka badan bay ku darayaan waayo xagga shaxshaxda iyo maxay ahayd quruxda iyo maxay ahayd isgeejinta hablaha loo deystay marka in maaliyadda iyo waxa weeyaan iyo waxbarashada inay waxa weeyaan maamulayaasha iskuuladu inay waliba haweenodaan oo hooyooyin aqoon leh ay caruurta inoo soo idbiyaan oo deetana caruur academic ah oo waxa weeyaan dee la soo tababaray ay dee waxa weeyaan kaalin soo galaan arrimaha bulshadana in dee wax weeyaan iyagaaba dee arrinkaasi uu yahay inay haweenku qoyska iyo arrimahana ay ka hadlaan aad baan idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu